وأرور هراء يسيلد حولها يدقمها دينيلا أري دوان يمد يقوى معلمتبنا انتبا وحي ساكا أجوغان إلا إبسدو هيا شيء إن دوالبا حولها أو كليا ما هين كو هالكن لوغو يمادو سنة كبدن وحا سيلد أريغا كلنا حيران حيوان أيسان جعليسان لكلن كيسا إسكبدا أركتديسا حتى دادك أو يمادا إبسيغا حولها إن بدن كما ورهيان ورابياشا هالكن كو حريسان كهر إنت آدن قدها أقلين موردا أي كجران waxaa laga rabaa inaad bixiso lacag dhan 2,000 shilin Soomaali ah waraabaha ama durwaagu wuxuu ka mid yahay dugaag badan oo iyaga oo yar laga soo dhaco dhulka fog ee miyiga waana markii iigu horeysay oo aan foolka fool ula kulmo waxaana waaye aragnimadaas sidayda oo kale ila wadaaga qaar kale oo daawasho ugu yimid maanta ama sawiradiisa kale laakiin asagoo nool maanta ay ugu horeysay oo faraxsanahay maadaama waraabe oo yahay dugaagada inta badan bilaaga ah haddana asagoo nool ina arko oo soo daawado soo booqdo ma sha Allah aad ugu faraxsan Allah wali ma ahan arag laakiin maanta si wanaagsan oo arkay عندي ممايين كبير ورابها دي ألح كحسوسته هذا مغلى جري هل ورابضية مقلت هل ورابضية مقلت أنا مغلى جري مقلت ها ما جرتوا هذا كنا حمر كان عركين لكن سبق غاني راعي حاجة dacwada kale ee moorada waxaa sidoo kale ku jira laba kashiito ama yaadado oo lacago lagu daawado hayeshee waa waraabaha kan ugu badan oo dadku xiiseeyaan inay arkaan balse sidee ayay waraabayaashu ugu nool yihiin halkan sida uu yiri milkiilahooda 3 jeer maalin walba ayay wax cunaan taas oo sida uu sheegay ka dhigaysa kuwa ka nabad galay inay duurka ugu leedaan gaajo iyo cunno la'aan waxaa kaliya laga xayiray dhaqdhaqaaqa iyo xurriyadda socodka isaga oo kaliya ayaa awoodi kara inuu gacanta u deysto salsalaaxo lana ciyaaro laakiin dalxiisku ma ahan oo kaliya sababta ugu weyn oo waraabayaashani loogu soo xiriiriyay halkan sida idin muuqata kuwani waa caagag ay ku jiraan subaga waraabaha oo lagu daweeyo sida uu yiri cudurro badan sida qaaxada qumayada iyo wixii la halmaala halkii litir ayuu sheegay in la iibiyo $200 waraabaha ayaa la aaminsan yahay inuu arki og yahay jinka sidaas darteedna uu furdaamo u yahay kuwa la xanuunsan isha iyo sixirka waxaana dadka qaba xanuunadaas laga qaadaa $1 si loo tuso waraabaha